السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال سو دوادا دمانتين مeel kasta caalamka ka joogtiin waa coach mahad oo idin leh mar kale soo dhawaada haddaad nagu cusub tahay insha Allah YouTube-ka waxaad saartaa subscribe saar gambaleelkana fulo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee aan muuqaalada aan soo gelino daawada ama arka haddaad hore noola joogtana insha Allah aad iyo aad u mahadsan tahay sii share gareeya si aad u gaarsiidiin dadka kale oo u baahan maantay fursadaha iyo waxyaabaha aan dadka la wadaagno inay kasii faa'iidaystaan soo dhawaada insha Allah bidnillaahi kariim maanta waxaan idiin hayaa mowduuc maaragta ku saabsan dhamaadka sanadka 2019 waxaan noo dhamaada sanad ogtihiin sanadkii 2019 video ayaa jiray aan bishan oo kala duubay haddaad YouTube-ka gadaal aad u gashiin aad arki doontiin aan kaga hadlaynay 2018 dhamaadkiisa iyo 19 iyo waxyaabaha dadku ay maaragta dadka wax u soo qabsoomay dadkii fursadihii ka faa'iideystay 2018 kuwa raba inay markaa 19 ka faa'iideystaan ayaa jiray video aan maaragta talooyin ku siinay now haddana sidii oo kale ayaa waxaan samaynaynaa insha Allah bidnillaahi kariim 2019 ayaa waxaan idin weydiin doonaa bidnillaahi kariim maxaa kaaga rumoobay ama kaaga hagaagay ama macnaha ku hirgalay goolashaadii iyo hadafyadaadii aad degsatay 2018 si aad markaas uga faa'iidaysato 2019 maxaa kaaga hagaagay ma tahay qof ku guuleystay hadafyadii dhammaan oo lahaa mase qaara qabyo ku ah mase waxa weeye dhammaantood waad ku guulaysan weysay oo waxaad noqotay qof macnaha ku fashilmay sanadkaas 2019 inuu hadafyadiisii hoos ka xariiqo haddaba 2019 tusaale ahaan anigoo kale hadafyo badan ayaan lahaa waxyaabo badan oo aad u badan ayaa ii rumoobay dhanka lifestyle-kayga oo aan sii hormariyey maaragta dhanka maaragta muscle game inaan sii sameeyey maaragta waxaa kaloo ii rumoobay oo kamid ah waxyaabo aad iyo aad u badan oo xataa halkan aanan maaragta idin kala wadaagi karin ilaaha ku mahadsan alxamdulillah aniguna dadaal baan sameeyey waxaa kamid ah next level waxa weeye muuqaalka hadda aad arkaysiin waa waxyaabihii maaragta 2019 aan soo sameeyey maasha Allah waxyaabo aad iyo aad u badan marka aniga ii soo qabsoomay xaqiiqatan waxaan booqday wadamo aad iyo aad u badan oo aan maaragta halkan aanan kusoo tiri karin oo maasha Allah safar aad u badan waxyaabo badan ii soo qabsoomay wadamo badan oo weligii taginaan tagay meelaha aan weligii dalxiis u taginaan u tagay meelaha aan xataa weligii ku hamin inaan tagayo ayaan tagay 19 plankii 2020 insha Allah wuu ii degsan yahay bidnillaahi kariim okay haddaba waxaan rabaa marka inaan ku weydiiyo haddaad waan ka soo gudubnay 2019 ama waxaa tahay qof ka soo faa'iidaystay ama qof inta wax bilaabay wixii meel dhexe uga haray ayaa tahay qaabka rabtaha kaaga dhacdo now waxaan joognaa insha Allah maalmo nooga dhiman haddii Ilaahay na gaarsiiyo inay noo bilaabo sanadka cusub noo bilaabmo 2020 haddaba waxaan rabaa inaan kula wadaago horta qof kasta oo maanta nolosha guul ka gaaray nooc ay rabta ha noqoto ama waxbarasho ha noqoto ama maaragta business ha noqoto ama whatever waxay rabta ha ahaato waxaad ogaat ama diet ha noqoto ama muscle game qof sameeyay ha noqoto ama qof miisaankiisa inuu dhimo ku guul waxay rabta ha noqoto waxaad ogaataa qofkaas waxaa jira waxyaabo badan oo uu kaaga duwan yahay waxyaabo badan oo noloshiisa uu ka bedelay ayaa jira marka adigana waxaad u baahan tahay sidaas oo kale same inaad adiguna samayso okay haddaba maanta waxaad samayn kartiin 2020 maadaama maalmo ka dhiman yihiin wax 10 beri camala ay ka dhiman tahay go'aanad maanta qaadan kartaa go'aanso inaad wax bedesho waxay rabaan ha noqdaan adiga wixii ka dhex qof kasta maanta macnaha waxba ka dhex guuxaya marka wixii ka dhex guuxaya ama aad is leedahay maantay 2020 waad qaban kartaa ama waad samayn kartaa ama dunidaad ku soo kordhi kartaa ama noloshaadaad ku soo kordhi kartaa ama familkaaga ku soo kordhi kartaa ama baahida aad dareemayso maantay 2020 inaad wax qabsato 18 iyo 19 iyo 17 hadday maaragta ay kaaga soo dhamaatay hurdo hadday kaaga soo dhamaatay shaqo la'aan hadday kaaga soo dhamaatay fadhi ku dir hadday kaaga soo dhamaatay waxyaabo markaas aadan dareemaynin inaad markaas horumar iyo ay noloshaada ku soo kordhiyeen hadday waqtigaaga ku soo dhamaaday maanta waxaad u baahan tahay uma baahnid sanadadii soo dhaafay saad u noolaato
go'aanso maanta inaad noloshaada wax ka beddesho wixii adiga aad jeceshahay inaad beddesho adigaa garanaya tusaale ahaan haddaad doonayso inaad maanta waxbarasho samayso go'aanso haddaad maanta doonayso business inaad samayso ama fursado raadiso ama opportunity aad ka faa'iidaysato maantaba go'aanso anigu waan ku hayaa fursad qaaliya oo maanta dhanka businesska iyo lifestyle-ka wax badan kaa caawi doonta laakiin adigaa garanaya waxa kaa dhex guuxaya go'aanso maantay okay go'aan adag waa inaad marka qaadataa because 2020 waa 12 bilood 12kaas bilood waxaan hubaa waxaad maanta go'aansato weliba lama rabo sanadka inuu kugu dhasho lama rabo intaan la gaarin maadaama sanadka maalmaha ka dhimo waxaa rabta samee go'aanna soo qaado maalmihii go'aankaaga ha noqdaan laakiin maalintay 1 January kuu dhalato waa inaad ku dhaqaaqdaa 2020 wixii aad go'aansatay inaad samayso waxay rabaan ha noqdaan adigay kuu taala waxaasuna waa inay noqdaan wax resultigooda la arki karo markay dhammaato bishan oo kale sanadka 2020 haddii ilaahayna gaarsiiyo biidnillaahi alkariim okay markaad go'aansato maxaad samaynaysaa markaad go'aansato waxaad samaynaysaa shaygii aad rabtay inaad samayso tusaale yaran soo qaadanaya waxaad rabtaaba inaad miisaankaaga dhinto oo kale go'aanso waa inaad go'aansataa okay ama waxaad rabtaa inaad business samayso go'aanso waa inaad samaysaa ama waxaad rabtaa maanta inaad muruqaaga dhisto ama aad bishaas noqoto sanadkaas noqoto sanadkaagii 6 back go'aanso macnaha waa inaad go'aan qaadato wey kadibna aad maaragta tilaab kale aad ficilkii samayso bilow markaad go'aansato waa inaad bilowdo shaygii bilow okay bilow adigoo weliba ku bilaabaya si quality leh wadada ugu fiican wadada ugu macquulsan adigoo ka hor markaa waxa weeye shayga aad bilaabayso ka sii baaraan degay oo hubkaagii haysta oo de maaragta u diyaar garoobay waa inaad bilowdaa lama rabo shaygii inuu markaas adigoo meel dhexe maraya ay wixii kaa kala go'aan nidaamkii systemkaagii uu kaa kala go'o markaad bilowdo waxaad joojisaa waxyaabo badan oo sanadihii lasoo dhaafay aad samay jirtay jooji waa inaad joojisaa because waxaa rabtaa inaad nolol cusub iyo fursad cusub iyo business cusub iyo waxbarasho cusub iyo waa inaad waxbarata inaad bilowdo marka soo jooji waa inaad waxaasoo dhan maanta kasoo tagtaa haddaad tahay qof dee dhafra ha dhafrin waa inaad balaan samaysataa routine waa inaad yeelataa subaxii markuu waagu bariyo waa inaad waxa aad samaynayso taqaanaa saacadda hore waxaad samaynayso saacadda ku xigta waxaad samaynayso saacadda ku xigta waxaad samaynayso maalintaadoo dhan waa inay kuu programsan tahay waxaad noqonaysaa markaas qof hadafkiisa weliba 12 bilood iska dhaafma way badan tahay ka hor xaqiijiya ayaad noqonaysaa wad oo ha joojinin macnaha lama rabo inaad stop garaydo wad programkaas oo ha joojinin la tasho ama ka ag dhawow barnaamijka aad bilowday dadka ehelka u ah ama ayagu maaragtaa kaa sii kara maaragta macluumaad kugu filan ayaga ka ag dhawow ayaga xiriir la yeelo ku xirnow isku waqtigaaga inta badan ayagu ha kula joogaan la joog because dan baad leedahay waxaad ka dheeraanaysaa dadkii sanadihii hore aad la soo joogtay because waxaa laga yaabaa 18 19 17 16 noloshaadana waxba iska bedelin please dadkaas waa inaad marka ka soo tagto aadna u timaado dadka aad markaas wax bidayso ama is leedahay alla ilaahay dadkan haddaad ka ag dhawaato maantay fursadan way kugu caawi kareen ama maaragta noloshaada waxbaad ka bedeli kartaa ama way kugu dhiirigeli karaan ama maaragta markaad aad ka sii dhacdaba way ku soo qaban karaan because waxaa jira dad maanta dhiirigelinta ku shaqeeya oo haddaad maanta keep going tiraa hore u soco maxaa kugu dhacay soo kacaya oo ku shaqeeya dadka kale dhiirigelintooda marka qofaad maanta ku og tahay inuu ku dhiirigeli karo inuu maanta dee tusaale kuu noqon karo in uu qofkaasaad marka ka ag dhawaanaysaa waa muhiim marka waxyaabahaas haddaad samayso oo maaragta marka hore go'aansato oo aad bilowdo oo aadan joojin oo maaragta ka ag dhawaato maaragta dadka aad wax ku tabayso ood ka dheeraato maaragta dadka aadan maaragta ku tabaynin inaad maaragta horumarkan iyo wanaaggan iyo hawshan aad bilaabaysa inay qayb kaaga qaadan karaan haddaad ka dheeraato waxaan is leeyahay joojisana waxyaabihii hore oo dhan ood samay jirtay oo totally noloshaada ka qaldanaa waxaan is leeyahay 2020 waxaad samayn kartaa wax aan innaba caadi ahayn
waxaan inaba caadi ahayn ayaa samayn kartaa. anigoo kale hadda tusaale ahaan waxaan kaa caawi karaa waxyaaba aad iyo aad u badan. maxaa ka mid a waxaa ka mid a tusaale ahaan oon garab kugu sii karaa inaad miisaankaaga dhinto. hadday miisaankaagu badan yahay hab caafimaada inaad u dhinto waan kugu garab sii karaa, waana kaa caawi karaa. laakiin go'aanso oo bilow oo balaankeedii iyo systemkeedii iyo coachingkeedii iyo taladeedii tusaaladeedii iyo dhiirigelinteedii aan kula garab taagnaado 2020 insha allah. waxaan kugu garab sii karaa miisaankaaga inaad kordhiso. haddaad maantay miisaankaagu yaryahay oo dareemayso maanta daciifnimo iyo low energy iyo tabaryaro iyo waxyaabahaasoo dhan haddaad maanta dareemayso garabaan kugu sii karaa. haddaad dareemayso maanta cunto xumo iyo maaragta fitamiin la'aan iyo quraac xumo iyo nafaqa xumo iyo waxyaabaha haddaad maanta dareemayso oo aad la'dahay maanta waxaad ku quraacato, waxaad noloshaada ku beddesho maanta aad la'dahay, ayadana waan kaa caawi karaa, waan kugu coach garay karaa, taladeedii tusaaladeedii balaankeedina waan ku sii karaa. 3 baad haysataa. waxaan kugu caawi karaa oon kugu soo kordhi karaa inaad maanta samaysato business kuu gaara adiga, business kuu gaara maantay oo aan kaala furo maantay ilaa 96 waddan inaad maantay business ka furo karto. new opportunity maanta aad bilowday, go'aan cusub aad qaadato, nolol cusub oo sanadkaas kuu bilow, wixii hore ka soo tag. haddaad na daawo jirtay 17 iyo 16 iyo 18 19 uma baahnid inaad na daawato. just waxa weeye dadka haddaad aragto dad noloshooda bedelay ka agdhowow weydii waxay noloshooda ku bedeleen iyo wadaday mareen iyo waxay sameeyeen. same waxaan sameeyay samay kartaa. business kaasaad samay kartaa. 96 waddan maantay inaad maanta ka furato business online oo xalaal ah insha allah wadadaad u mari laheyd iyo qaabkaad u samay laheyd iyo 12 bilood gudahoosaad noloshaada ku bedeli laheyd dhan walba waan kaa caawi karaa. marka waxyaabaana kaa caawi karin way jiraan marka oo aad u badan, kuwaasoo kale ma codsanayo, laakiin waxyaabaha aan markaas anigu aan noloshaada ka bedeli karo ama aan markaas waxa weeye kuu fududay karo ama aan kaala qayb qaadan karo ayay ka mid yihiin kuwan aan kuu soo sheegay. okay muhiimaddu marka waxay tahay oo muuqaalkaygu oo maaragta quseeyaa war haddaad sanadihii la soo dhaafay noloshaadu ay iska ahayd mid iska normala, uma baahnid inay maaragta ay sidiisii ahaato. waxaad u baahan tahay inaad wax ka beddesho noloshaada. waxaad u baahan tahay maanta inaad markaas waxa weeye sanadka 2020 adiga iyo familkaaga iyo maaragta ciddii aad noloshoodu markaas waxa weeye mas'uuliyadooda ku saaran tahay ayaa waxaad u baahan tahay inaad nolol u samayso. waxaad u baahan tahay oo samay kartaa sanadkaas inaad dad badan ayagana noloshooda saameyn ku yeelato, inaad dad badan oo maanta xataa shaqo la'aan aad shaqo u abuurto, marka taada adigu samaysato inaad dadkii kalena aad gacanta soo qabanayso. waxaa jira dad badan oo waxaad markaa arki doontaa 2020 kaa hor imaan doona. waxaad la arki doontaa dad badan oo kugu qosli doona. waxaad arki doontaa dad badan oo negative kugu noqon doona. waxaad arki doontaa dad badan oo ku aflagaaday doona. waxaad arki doontaa dad badan oo xasid kugu noqon doona. waxaad arki doontaa dad badan oo ka soo horjeeda guushaada iyo horumarkaaga iyo waxaad samaynayso. waxaad arki doontaa dad badan oo fikirkaaga u haysta wax qaldan. okay laakiin dadkaasu waa dadka adiga lagaa rabo 2021 inaad noloshooda beddesho. okay dadka marka waxa weeye sanadkaas markaad adiga noloshaadu isbeddesho oo ay dadkii fikraddii qaldana ay aaminsanaayeen automatically u baxaysaa. laakiin haddii aad is dhiibto oo de sanadkaas uu kaa noqdo fashil kaaga dhammaado, dadkii fikraddii ay aaminsanaayeen way sii xoogaysanaysaa. marka noloshaadu beddesho ayaa waxay samayn kartaa inay malaayiin qof maanta noloshooda ay isbeddesho, fikirkooda beddelaan, noloshooda beddelaan, lifestyle-kooda beddelaan, shaqadooda beddelaan. okay wax kasta maanta attitude-kooda wax kasta maanta ay beddelaan ayaad sabab u noqon kartaa 2020 insha allah. aniga 2020 plana ii degsan insha allah bidnillahi alkariim. bisheeda ayaan idinla wadaagi doonaa waxyaabaha nolosheeda kusoo kordhay qaybo ka mid ah. sometimes qofka noloshiisa waxyaabo badan kusoo kordhi kara, marka waxyaabo uu kula share garay karana way jiraan, waxyaabo uu kula share garay karina way jiraan. laakiin anigu waxaan idin sheegayaa waxay tahay totally nolosheeda isbedeshay. 16kii qaabaan u noolaa, 17kiina nolol kalaan galay, 18kii nolol kale, 19 nolol kasii fiican, 20na wax kalaan rajeynaya.
afartaas sano oo saddexdaas sano u dambeysay noloshaydu kor bay u socotay laakiin wixii ka horreeyay hoos bay u socotay muhiimaddu marka waxay tahay waxaan doonayaa wixii anigu marka aan noloshayda ku bedelay ama aan ku dabaqay inaan adigana gacanta ku soo qabto come on soo soco ku iraa soo soco okay aad baan idin salaamaya insha allah muuqaalkan haddii uu ku anfacay ama uu kuu noqday maaragtay dhiirigelin ama aad u aragtay in uu muhiim yahay waxaan kaa codsanayaa keliya maanta waxaa laga yaabaa haddaan kaa codsan lahaa $1 ama $2,000 inay kugu adkaa lahayd laakiin waxaan kaa codsanayaa keliya videogaas inaad share inta tiraa u gudbido asxaabtaada intaas keliya waa wax aad iyo aad u fudud because waxa aan ka soo hadlo dhan waxa weeye waa wax aad iyo aad u wanaagsan dadkana anfacaya taas waayaana aniga social media u doortay inaan dadkayga wax ugu gudbiyo social mediahu waxa weeye waa sakiin laba af leh oo dhinaca wanaagsanna u adeegsan karto dhinaca xunna u adeegsan karto haddii aad ku aragto aniga hadalladayda ama muuqaaladayda waxyaaba xun oo aan ilaahay raalli ka ahayn ama aad is leedahay maanta waxba kaaga imaan kara ha gudbinin haddaad u aragto inay positive yihiin ay wanaagsan yihiinna insha allah waxaan kaa codsanayaa muuqaaladaydu qof kasta oo arka waxaan ka codsanayaa muuqaalkan inuu usii gudbiyo asxaabtiisa qof kasta oo jeceshahay la u sheergare luuqiisa ugu dir because waxaa laga yaabaa inuu inta contact ila soo sameeyo noloshiisu bedesho okay aan fursad maanta u noqdo yes waana waxa aan u duubayo videogan ugu talagalay aad baan idin salaamaya insha allah inta aan idin soo geli doono muuqaalka xiga waa Coach Mahad oo idin leh insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bye bye